walaal janalkan haddaa ku cusub tahay subscribe ina saar. Maanta waxaan ka hadlaynaa waddanka Tunisia. Tunisia waxa uu qaaradda kaga yaalaa cirifka waqooyi, waxaana dhanka galbeed iyo koonfur galbeed ee xuduud kala leedahay dalka Algeria, dhanka koonfur bari dalka Liibiya, dhinacyada waqooyi iyo bariga badda dhexe Mediterranean-ka. Tunisia waxaa gumaysan jiray dalka Faransiiska intii lagu jiray dagaalkii labaad ee adduunka, muddadii u dhaxaysay November 1924 ilaa May 1943. Dalka Tunisia waxaa si ku meel gaar ah u qabsaday ciidankii Naasiyiinta ee Jarmalka. Tunisia waxa ay madax bannaani ka qaadatay dalka Faransiiska 20 Maarso 1956. Xabiib al-Burqaabi ayaana noqday hogaamiyihii ugu horeeyay dalka Tunisia. caasimadda dalka Tunisia waxaa la yiraahdaa Tunis. baaxadda dhulka Tunisia waxaa lagu qiyaasaa 163,610 kiiloomitir square. Tirokoob lagu sameeyay 2017 waxaa lagu ogaaday in dadka ku nool dalka Tunisia ee tiradoodu dhan tahay 11,434,994 qof. luqadda rasmiga ah ee dalka waa Carabi. luqadaha kale ee la isticmaalo waxaa ka mid ah Berber iyo luqadda Faransiiska. luqadda Faransiiska waxaa loo isticmaalaa xagga maamulka, ganacsiga iyo waxbarashada. lacagta la isticmaalo dalka Tunisia waxaa la yiraahdaa diinaar Tunisia. Tunisia waa dal muslim ah, sunni ah, waxa ayna xubin ka tahay ururada kale ah suuqyada bariga iyo koonfurta Afrika, ururka jaamacadda carabta, ururka iskaashiga islaamka, midowga Afrika iyo ururka qaramada midoobay. janalkana haddaa ku cusubtaa walaal waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe noo saarto.